الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات والتسليم أما بعد walaalayaal maanta waxaan doonayaa in aan ka hadlo faa'iidooyinka aynu ka helayno marka aynu tukanno salaada fajarka oo aan rajaynayo maanta haddii alla idmo oo aad wax ka ogaato in aynan dib dambe kuu dhaafi doonin tukashada salaada fajarka oo aad u daadegi doonto ama aad u degdegi doonto xagga iyo masaajidada si aad usoo tukato salaada fajarka salaada fajarka ruuxii tukadaa waxa uu ahaanayaa 24 saac maalintaas waxa uu ahaanayaa maganta eebe ayuu ahaanayaa oo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa magan gelinaya oo ka ilaalinaya ka dhowraya ka xifdinaya wax allaale wixii balaayo ee ku soo socda haday noqon lahayd xasad ishiis haday noqon lahayd shar ay la damacsiin cadow kale oo ku soo wajahan haddii ay noqon lahayd simbirixinta shaydaanka haddii ay noqon lahayd intaasba ilaah ayaa ka ilaalinaya oo suubanayna maxamed ah badbaadayna xaris dushiisa aatay waxa uu yiri man salla al-fajra man ruuxi salla tukada al-fajra salaada fajrka ay tukada fahuwa wuxuu ahaanayaa fi dhimmati Allah subhanahu wa ta'ala magantiis ayuu ahaanayaa ruuxaas marka dhimmati Allah ayaa waxa lagu fasiraa laba siyaabood ayaa lagu fasiraa oo midda koobaad waxa ay tahay ruux madaxii hadduu ku yeero maanta uu ku yiraahdo aniga ayaad marti ii tahay maanta gurigeyga ayaad marti ku tahay ma laga yaabaa ruuxaasi gurigiisa inta aad joogto in dhibaato ay kugu timaado jawaabtu waa maya haddaba ruuxaasi ku marti qaaday khaaliqii abuuray ka waran haddii aad magantiisa aad noqoto marka waxaan u malaynayaa faa'iido ka ballaaran in aanay jirin sababtoo ah kaasi addoonka eebe ah ayaabad ku kalsoonaatay haddii gurigiisa aad tagto inaad nabad helayso maalintaas oo aanay dhibaato kugu imaanin marka khaaliqii isaga abuurtay haddii uu ku marti sooray ka waran oo aad magantiisa tahay maalinta waa midda koowaad saasaa lagu fasiraa fasirka labaadna waxa uu yahay oo dhimmatullah lagu fasiro waxa uu yahay waxaad oofisay haddii aad tukato salaada fajarka waxaad oofisay ballantii idinka dhaxaysay adiga iyo eebe adiga iyo khaaliqeena kor ahaaday ballantii idinka dhaxaysay ayaad oofisay oo as-salaah silatun bayna al-'abdi wa rabbih xiriirkii idinka dhaxeeyay adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala ayaad oofisay sababtoo ah haddii aanad tukan salaada waad iska yaacdo oo aad soo kacdo aad socoto aad orodo waxay la macno tahay marka inaadan xiriir balla lahayn khaaliqaaga marka ruuxa tukada salaada fajarka waxa uu noqonayaa fi dhimmati Allah marka labadaas siyaaboodna ama labada fasir ayaa lagu sheegaa oo aan ka soo hadlay haddeertan faa'iidada labaad maxay tahay faa'iidada labaad waxa ay tahay salaada fajarka waxay ka fogeynaysaa nifaaqa ama munaafiqnimada ayay ka fogeynaysaa oo ruuxa tukada fajarka munaafiqnimadii iyo astaamihii lagu yaqiin munaafiqnimada waa uu ka gudbayaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u sakhiray inuu ka gudbo oo suubanayna maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri xadiis kamid ah xadiisiisa waxa uu ku yiri in athqala as-salati ala munaafiqiin salaada ugu culus dadka munaafiqiinta ahi ee laba wajiilayaasha ahi waa salaatul fajr waa salaada fajrka iyo cishaha labada salaadood ayaa ugu culus kuwa munaafiqiinta ahi marka haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku waafajiyo oo aad tukato salaada fajrka waxaad ka fogaatay oo aad bari ka noqotay munaafiqnimadii fadliga saddexaad muxuu yahay ama faa'iidada saddexaad maxay tahay faa'iidada saddexaad waxa ay tahay malaa'ikta eebe jalla sha'nu wa ala ayaa ka markhaati kacaysa haddii aad tukato salaada fajarka in iimaankaagu uu yahay mid aad u xoogani oo rabbigeena kor ahaaday ayaa waxa uu ku yiri kitaabkiisa wa qur'aan al-fajr inna qur'aan al-fajr kana majhuuda qur'aan al-fajr meesha waxa loola jeedaa waa salaada fajarka ayaa loola jeedaa qur'aan al-fajr
marka haddii allah subxaanahu watacaala uu ku haleeshiiyo tukashada salaad fajrka faa'iida saddexaad aad ka helayso waxa aad tahay malaa'igta eeb ayaa ka markhaati kacaysa iimaankaaga ka markhaati kacaysa oo suubanayn maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaa ka sugnaatay inuu yidhi waxaa jirta malaa'ig isakiin beddelayso oo dushiina isku beddelaysa dabadeed marka ay u tagaan allah subxaanahu watacaala ay samada ku noqdaan ayaa rabbigan waxa uu su'aalayaa malaa'igta eebe isagoo ka ogaalsan wax waliba wuxuu ku leeyahay markaa maadaa taraktum cibaadii addoommadayda maxaad uga timaadeen wahuwa aclamu bihim isagoo kaga ogaal badan markaas kolkaasi malaa'igta allah subxaanahu watacaala waxa ay ku jawaabayaan ataynaahum wahum yusalluun waxaanu u tagnay iyaga oo tukanaya wa taraknaahum waxaanu ka nimi haddana iyaga oo tukanaya cadiim taasina waa faa'idada saddexaad haddaba faa'idada afraad maxa ay tahay faa'idada afraad waxa ay tahay kolka aad tukato salaada fajrka waxaad noqonaysaa ruux aad u firfircoon oo waxaa laga yaabaa howl maalmeedkaasi maalintaasi si dhaqso ahi in ay kugu fududaadaan sababta xilli hore ayaa soo toostay waqti badan ayaa kuu soo baxay jirkaaga wuxuu ka helayaa firfircooni zaa'id ah ayuu dheeraada ayuu ka helayaa marka waxaad gudanaysaa salaadaada howlaha waxaad gudanaysaa adigoo ah ruux aad u firfircoon sababtoo ah nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaa ka sugnaatay inuu yidhi habeenkii ruuxa muslimka ay marka uu seexdo shaydaanku 3 gunad ayuu kaga gunadayaa madaxa marka la eedaamo oo salaada fajrka la eedaamo haddii aad ka toosto hal cuqdad ayaa kaa furmaysa kolka aad weysaysatana cuqdadii labaad ayaa kaa furmaysa marka la eedaamo oo aad toosto oo aad tiraahdo alxamdulilah alladii axyaanii bacdama amaatanii wa ilayhi nushuur waxaa maad iskale allihii soo toosiyey geerida yarayd marka aan ka imi kadib isaga ayaana loo laabanayaa marka aad tiraa isaga ayaan xaggiisa muxuu ahaa maalinta damban aan ka soo baxaynaa oo qiyaamaha isaga xaggiisa ayaanu ka soo baxaynaa marka intaad tiraahdo cuqdad ayaa kaa furmaysa markaad weysaystana cuqdadii labaad ayaa madaxaaga ka furmaysa marka aad masaajidka tagto aad tukatana cuqdadii saddexaad ayaa kaa furmaysa haddaba faa'idada afraad hadday taasi ahayd faa'idada shanaad maxa ay tahay waxaa ka sugnaatay suubanayn maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi acmaasha kuwa ugu ajarka badan waa qiyaamuleylka qiyaamuleylka ayaa wuxuu yahay acmaasha addoommadu ay sameeyaan muslimiinta ah ama gabdhaha muslimaadka ahi waxaa ugu muxuu ahaa ajar badan waa qiyaamuleylka haddaba ruuxa muslimka ahi marka uu tukado salaada fajrka waxay la micno tahay isaga oo cibaadaystay qiyaamuleylki oo nabigeena maxamed ah badbaade naxariis dushiisa aatay isagoo noo sii faahfaahinaya arrintaas oo noo balballaarinaya waxa uu yidhi oo uu ku sheegay xadiis ka mid axaadiistiisa man salla alcishaa fi jamaaca ruuxii ku tukada cishaha jamaaca ku tukada fakaannamaa qaama nisfu lleyl wuxuu la micnayaa ruuxaasi inuu taagnaa habeenka barkii waidaa salla alfajra walcishaai macan haddii cishaha iyo fajrkaba uu tukado uu haleelana fakaannamaa qaama alleyla kullo waxay la micno tahay inuu ruuxaasi taagnaa habeenkii oo dhan inuu taagnaa marka walaalayaal sidaasi ayuu allah subxaanahu watacaala inoogu sakhiray acmaasha aynu ka helayno ujuurta faraha badan ee allah subxaanahu watacaala adduun iyo aakhiraba uuna siinayo sidaas ayay u fudud yihiin marka inaan dhowrno salaadaha aad bay u wanaagsan tahay waa mare waxaad hagaajinaysaa xiriirka aad la lahayd oo kaala dhexeeyay rabbigaaga khaaliq ku abuurtay ayaad marna hagaajinaysaa marna waxaad ka helaysaa ajar ayaad ka helaysaa faa'idada shanaad maxay tahay marka faa'idada shanaad waxa ay tahay sida uu noo sheegay suubanaheena salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi ragcata alfajr khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcadood ee aan tukanayno fajarka waxa ay ka khayr badan yihiin dunida oo dhan wax yaala dunida oo dhan
iyo waxa yaalla dunidan daarahan qurxoon lacagtan gawaaridan waxaan oo dhan iyo waxa ku sugan oo dhan oo mataaca oo raaxays ah waxa ka fiican oo ka ajar badan oo aad ka helaysaa waxa dunida yaalla iyo waxa ka badan oo dhan waxaad ka helaysaa labada ragcadood aad tukato ayaa ka fadli badan oo ka weyn oo xagga ajarka marka la yidhaahdo marka ragcata alfajr waa labada ragcadood ee sunnada ah waa laba ragcadood ee sunnada ah ee ka horeeya salaada fajrka ayaa waxaa la yidhaahdaa ragcata alfajr marka haddii aad tukato labadaas ragcadood thawaabka aad helayso waxa uu ka khayr badan yahay adduunyada iyo waxa dhex yaalla oo dhami ayuu ka khayr badan yahay fadliga toddobaadna muxuu yahay marka ama faa'iidada toddobaad ay leedahay marka aanu tukanno salaada fajrka aynu ka helayno muxuu yahay ama faa'iidadaas maxay tahay faa'iidadaas waxa ay tahay ruuxa tukada salaada fajrka maalinta qiyaamaha waxa uu si toos ah u arkayaa allah subxaanahu wa tacaala ayuu si toos u arkayaa wejiga allah subxaanahu wa tacaala ayaa u suurtagelay si mubaashir ah si toos ah inuu ugu arko maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh isagoo la socdaalayay qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa waxa uu ku yiri ma arkaysaan uu yiri muxuu ahaa cadcayda soo uma jeedaan haddaha sideed u arkaysaan si toos ah ayaan u arkaynaa yireen rasuulka allah si toos ah ayay noogu muuqataa cadcayda marka waxa uu ku yiri markaa haddii aad ilaalisaan salaada fajrka allah subxaanahu wa tacaala sida cadcayda maanta ay ku muuqato waad u arkaysaan ayaa allah subxaanahu wa tacaala aad u arkaysaan wejigiisa ayaad u arkaysaan ولذلك isagoo sii adkeynaya arrintaasna waxa uu ku yiri suubanayn maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh man salla albaradayni dakhala aljanna ruuxa tukada labada harqabow maxay tahay waa fajrka iyo waa qoraxda marka ay soo baxayso iyo marka la galo hoos qabowga ama harqabowga la galo waa casarka marka ruuxa tukada labada harqabow waxa uu gelayaa jannada taana way ku taalaa marka allah subxaanahu wa tacaala aragtidiisa goormay ku sugnaanaysaa marka aanu jannada galno ayay ku sugnaanaysaa marka walaalayaal way fara badan yihiin faa'iidooyinka laga helay salaada fajrka iyo tukashadeeda laakiinse waxaan doortay in intaan toddobadan faa'iidood in aan kusoo koobo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh